بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونحن دعوة الكسور دعوة ميت كلو كمية برنامج ده وحبرشة هذا ونكلم ندي سوق بنو برنامج كان دعوة التدبات كم حنكوي جدونا قيب تقودن تام فيني كلو يقانو ورنتيا قيب مهمة أو كمية وحبرشة ده سومالا استمر كاسنا لو قدر يلو عورتها تشلع السنة يدك الضير تاه نودين يصدق وقتي جودهم بعمتها هلان يودك ميجو كنول يدك بادية هنا ميت جار الله سينا يوم سيد الله وصعتان دكتور السومالان dadka imanaya ama ardayda wax ka bartay in badan oo kamid ah waxa weey ardayda yara runtii waxa laga yaabaa ardayda faraha badan ee iskuulada ku jira in badan oo kamid ah aanay soo qoreecanba qaarkoodna halka aanay waqti qadida aanay helin haddaba waaxda waxbarashada ee qaybta fiirka u qabtay wasaaradda waxbarashada ah waaxda daryeelka ayaa waxaan jecelahay in wax ka weydiinaa gaasima waaxda daryeelka ayaan maxamed amare bal qaabka ardayda danyarta ama dadka jilicsan loo baahan in loo helaan labadii adeeg ee ahaa waxbarashadii iyo quudintii cuntada qaabka u daryeelaan iyo xilligan Soomaaliland inta goobada bal ay ka hirgashay arintaasi ayaan wax ku soo dhaweynaa barnaamijka waxbarashada telefishinka qaranka Soomaaliland agaasimaha channel ku weydiiyo oo bulshada la wadaagto bal qaybta fiirka iyo waaxdan daryeelku sida uga howlgasho in la caawiyo ardayda danyarta aan awoodin in waxbarashada iyo cuntadii ay labadaba helaan walaalo waaxda daryeelka waxa hoos yimaada afar qaybood waxa kamid ah qaybta quudinta qaybta fayadhowrka oo ah washka iyo farxalkii qaybta caafimaadka iyo qaybta ciyaaraha oo midkanisyadii iyo madadaaladii marka qaybtaad waxay iga weydiisay haddaan kaaga sheego quudinta waxay wasaaradda waxbarashada iminka aad u quudisaa 150 iskuul 150 iskuul oo WFP ay naga caawiso tirada ku jirta ardayda waa 26,580 arday waxa kale oo iyaguna yimaado quudinta la siiyaa 512 shaqaalo oo ah storekeeperkii iyo karisooyinkii carruurta cuntada u karinayay 150 iskuul waxay u badan yihiin iskuulada miyada inkastoo magaalada wax yar ay kaga jiraan sababta miiga looga dhigayna waxa weeyaan ardayga miiga jooga waxa laga yaabaa inuu 4 kilomitir 5 kilomitir iskuul ku jiro markaas ardaygu markuu soo kala isagoo bilaa quraac halka quraacda ka helo qadadii ka helo marka cunto dhameystiran oo nutrition dhameystiran ayaa la siiyaa ardayda ayana dad mahadsan tahay bal waxaad ka warantaa ardayda imka quudinta loo sameeyo kale marka la soo xulay kala ama la doonayo iskuulka qoodin laga sameeyo maxaa la eegay shuruudaha la eegayo sidee ardayda see loo soo qiimeeyo marka intaan iskuulka laga bilaabin wala ardayda waxa loo soo xulaa criteria lagu xidhaa in iskuulada waxa la eegaa iskuulkaasi inuu leeyahay meel biyo u dhow oo biyo leeyahay waxa lagu xidhaa ardayda baahiyaha meelaha abaaraha u badan waxa lagu xidhaa meelaha ardayda danyartu degan yahay dadka danyartii degan yihiin waxa lagu xidhaa criteria-da kale iskuulka 50 arday ma joogaan iyo wax ka sareeya laakiin iskuulka hadii 20 arday ama wax ka sii yar joogaan macallimiintina yar yihiin ta kale waxa la eega tirada macallimiinta joogta galaasyada iyo fasalada dabadna halkaas looga bilaabaa fiirinka ardayda maadaama konton arday joogaan macallimiintina u dhameystiran yihiin meel tuulo oo u baahi badan ay tahay weyn waxaan 14 gobol ee Soomaaliland 150 iskuul oo qaybsan yihiin waatahay aad u mahadsan tahay waxa kale oo jecelahay inaan ku weydiiyo marka laga hadlayo qaybaha fiirinka runtii waxbarashada marka laga hadlayo miyiga magaalada aad bay u kala duwan tahay haddii aan midna ka soo qaadno qaybta miyiga oo kale waxa jira dad reer guuraayo oo meel ka gurmar meelga waqtiyada abaaraha kale waqtiga roobka kale marba ku xidhan joogiga cimilada sida ay tahay ardayda reer guuraaga iyo dadka kale tuulooyinka iyaguna xoolo dhaqatada oo intooda badan mar walba biyo halka yaalan u guuraya
fiidinku ma u raacaysa meesha ardaygu guuro ma la tagtaa walaal ardayda reer guraaga fiidinku kama daba tago fiidinku iskuulku ku salaysan yahay deegaankaasi marka imka abaaruhu jiraan oo kale imka sida burco oo kale abaaraha jiray gobolka Togdheer oo kale marka abaaruhu yimaadaan kale iskuulku u xirmaya laakiin wax laga daba geynayo fiidinkii maaha laakiin waxaanu sameeynaa in biyo u raadino si aan ardaydii aanay u waayeen adeegii biyihii oo cuntada loogu karinayo marka mar walba wasaaradda waxbarashadu waxay heegan ugu jirtaa iskuulkaasi hadduu biyo waayo sidii biyo loogu keeni lahaa iskuulka raashinkii mar hadday WFP na siisay wasaaradda waxbarashadu waxay bixisaa biyihii iyo adeegii xaabadii iyo maxay dayactirkii kale cuntadii weelkii oo dhama loo keenay agabkii loogu karinay wasaaradda waxbarashada bixisa waxa laga yaabaa daawada in la isweydiisaan talow meelaha fiidinka oo kale cuntooyinka laga sameeyay talow halkii ku wali karaan hadii tusaale ahaan la soo qaato kale degmooyinka oo kale meelaha u baahan fiidin loo sameeyo agaasimaha waxda daryeelka wasaaradda waxbarashada waxaan jeclahay weydiiyo bal qaybaha u duwan qaar kamid haday xusi karto meelaha gobolada iyo tuulooyinka degmooyinka ugu fogfog Soomaaliland ee uu gaadho fiidinka wasaaradda waxbarashada ma qaybtan quudinta cuntada ee carruurta ku jirta goobaha waxbarashada walaal 14 gobol ee Soomaaliland baa fiidinku uu gaadhaa 150 iskuul inkastoo ay baahida inoo wada kafeynayno wada bixin kareenin haddana 150 iskuul baa qaata 150 iskuul waa Salal to Sool marka waa Salal buu ka bilaamaya maxaa la dhahay ilaa to Sool oo gobolka Sowra gowsa weyn ay kamid tahay ayuu gaadhaa walaalo waa tahay markan ka nimaadno ardaydaas wasaaraddu ay u daryeesheen cuntadii in la siiyo waxbarashada in la siiyo taasoo saamaxayso arday waxbarashada si wato waxa jirtay in runtii ardayda qaarkood ama waqtiyada si lagu jiro waqtigan xaadirka oo kale duruufo caafimaad ay ku gadaamayeen bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan ardayda dugsiyada ku kulmeeyay goobihii waxbarashada ayaan qaybta caafimaadka kale marka ka hadlaynaa waxaan daryeelka runtii qayb aad u ballaaran oo kale adeegyada iyaduna u qabato ardayda midlan la quudinayo iyo kuwa kale caadiga ah wasaaradda waxbarashada waxay sameysay fidin dhinaca washka ama fayadhowrka ah wasaaradda waxbarashadu waxay sameysay goob kasta oo iskuul kasta oo wasaaradda waxbarashada leedahay ama miyaha noqdo ama magaalaha noqdo waxaan u sameynay faraxalkii maadaama ardayga suuliga markuu galo uu faraxalnayo ka soo noqdo markuu cuntada cunayo uu faraxalanayo kala fogaanshihii ardayda maaskii oo mar walba heegan loogu yahay tababaro la siiyay maamulayaasha gudoomiyayaasha oo ay ku socoto mar walba in la siiyo caafimaadkii tala bixintii marka si fiican baan caafimaadkana uga adeegnaa taasoo ah in maxay mar walba ardayda maaski la siiyo kala fogaanshihii iyo faraxalkii biyuhu ugu muhiimsan yihiin marka COVID-ka laga yimaado laftigiisa caafimaadka guud oo kale iyadana ka qayb qaadataan waan ka qayb qaadanaa marar badan waxa dhacday in ardayda indhahooda la eego maqalka dhagahooda kala la eego waaxda aan u xil saaranahay daryeelku ay naga caawiyaan hay'ado badan iyo wasaaradda waxbarashada oo iyaduna wasiirku hormood u yahay oo mar walba ardayda ugu feejignaado waxyaalaha waxa kamid ah iskuul heladka la yiraahdo mar walba wasiirku isagoo heegan ugu jiro toddobaad markii la joogo toddobaadka dambe ardayda halkay wax marayaan marka Soomaaliya oo dhan waan ka sameeynaa marka waxa la cabirayaa inta ilmihiisa fiican u arkayo waxbarashada aragga indhaha ilmaha la eegaya dhagihiisa iyo maqalkiisa baa la eegaya ardayda qaar baa waxa yeeshaan markii meelaha niyada joogan ay laabta xanuunto oo sidii duray oo kale ku dhaco ayaan haada mare waxa kale oo jecel dib hadaan ugu soo noqdo qaybta fiidinka oo kale runtii caafimaadkii fiidinka waa labaan kala maarmin qaybta fiidinka oo kale ma dhacdaa in ardayda midna Soomaaliland hadii loo bilaabo ardayda ay u socoto fiidinkii waxa laga yaabaa hadii ay ka goodo in gaaba soo baxay meeshaas waxa laga yaabaa ardayda tuulada jooga ama miyiga jooga quraada guriga lagu sameyn jirin inuu tago cuntadii iskuulka uu ka heli jiray ma dhacdaa marmar in gaab shaas kale ku yimaado ardayda fiidinkii loo waayo yaa sax hawsha ka qaabila walaal hawsha ma dhacdo ardaydana kama goodo wanday mala aadan raashinka sabti ilaa khamiis arday raashinkooda way helaan waxa iska kaashada wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda WFP la yiraahdo waxa kale oo jirta hay'adda faara la yiraahdo imka musaaciid 16 iskuuliyadu geysayada musaaciid si iskuulo kamid iyagu barbaarinta carruurta laakiin cuntada joogtada 150 iskuul wasaaradda waxbarashada iyo WFP baa iska kaashata marka miisaaniyadda dawladda kale qayb ka tahay barnaamijyada miisaaniyadda dawladda ku jirta wasaaradda waxbarashada ayaa wasiirku wuxuu sameeyay inuu uga sameeyo uga soo gooyo meelaha qaar oo dabadeedna iskuulada ku caawiyo oo raashinkeeda u bixiyo ayaan hadii ku sii socono qaybtan waxbarashada daryeelka oo runtii qayb afar waaxood oo balbaaran hoos imanayaan waxda tartamada iyo kadishada kale waxay runtii door muhiim ah ka qaataan
dardargelinta dhinaca waxbarashada iyadoo ardaygu sii naqtiimayo su'aalaha hadhow imtixaanka ka iman doono kale kadiska uu ku soo arko sidoo kale ardayda daal u sameeyaan sidii ay u fahmi lahaayeen su'aalaha hadhow kaga imanaya kadiska oo kale barnaamijka ahmiyad inta laga wasaaraddu siisaa qaybta kadisiyada iyo in lagu tartamo iskuulada dhexdooda iyo iskuulka laftiisa walaalo qaybta kadisiyada waaxda madadaalada waxa weeyaan qaybta madadaalada waxa weeyaan ciyaarihii iyo kadisiyada iskuulada waxay marka aanu ka qabtay intan waaxda joogay 11 gobol ayaanu ka qabanay 3 gobol baa noo hadhay 11ka gobol aanu ka qabanay de waxaan ogaanay tayada ardaydu halkay marayso waxbarashadoodu si fiican bay u socotaa maadada ay ku hooseeyaan oo kale de marka xafiiska kormeerka aanu soo gudbinayna kormeerkan waxbarashada tooska ah buu gudbinaya marka si fiican bay walaalo u socotaa hawshaasi ciyaarihii bay noqotay iskuul kasta waxa lagu daray xiisad physical education oo ciyaaraha waxay noogu jirtaa BED marka BED-daasi iskuul kasta xiisad uu ugu jirtaa Soomaaliland oo dhameystiran ay ugu jirtaa ayaan marka laga hadlayay arinta kadiska sheegtay in ardayda ay ka soo baxda markaad aragtaan aad kadiska qabataan oo kale maadadii waxa ogaanaysaa ka hooseynayeen oo kale oo ardayda laga yaabay in badan aan garan maadooyinkaas oo kale bal marka waxbarashadeena saa loo eego marka kadisada idinko ka tusaale qaadanaya meelaha u badan inta badan ardayda dhinaca luqadda ku liitaan ma carabiga ku liitaan ma afka Soomaaliga ku liitaan meelaha u badan baa sileedahay ardayda u baahan in laga xoojiyo horta 11ka gobol ee ka qabanay iskuuda mid maaha tartanka marka ardaydu soo tartamaan de waxa dhici karta saako kale markii laba iskuul galeen inuu maado ku liito marka maadooyinkii oo dhan ma oran karo way ku wada xun yihiin ma oran karo way ku wada wanaagsan maadooyinka qaar bay ku yar liitaan ayaan marka imka laga hadlayo qaybta daryeelka si guud meelaha culayska saartaan waxaan maxaa ugu horeeyay marka laga yimaado afarta waxood runtii aad u ballaaran haddana culayska u badan inta badan keebaad saartaan horta afarta qaybood ee hoos yimaada waaxda daryeelka afarta qayboodba waa muhiim mid waa caafimaadkii oo ardayda kala fogaanshaheedii iyo waqtigan xaadirka ku fadhiitinka jira iyadu waa muhiim ta labaad waa feedinkii oo de waa ardayda cuntadoodii waa ugu muhiimsan iyaduna ta saddexaad waxa weeyaan washkii oo faraxalkiya oo de biyo la'aan iyo faraxal la'aan midna ma soconayo qaybta kale tartanka iyo madadaalada oo iyaduna maxay kadisiyada iskuulada oo iyaduna tayada ardaydii lagu eegayo iyo qiimihii ardayga marka afarta waaxood xoogan afarta qaybood waxaan xoogan saarnaa qaybta washkii kale ama qaybta faraxalka kale waxa muhiim ah in iskuul waliba uu yeesho barkadii biyaha lagu shubi lahaa iyo booydu keenisay hawshaas u maaraysan loo sameeyo hawsha inta badan iskuulada qaar ma jiro horay leeyihiin oo biyaha kayd bay haystaan waxay haystaan barkadihii qaar maxay dawladda hoose ee wadanka oo dhan ayaa bixiya oo sida dawladda hoose Hargeysa biyaha way iskuulada qaar bay siisaa qaar maxay hay'ad ceelalba u dhaw iskuulada miyada oo kale qaar hay'adaha naga caawiya Save the Children iyo Care iyo biyaha way naga caawiya qaybta mashruuca GBLG oo kale iskuulada primary marka laga hadlayo afarta waaxyood qaybta feedinka qaybta kale caafimaadka iyo taa farxalka iyo taakadiska madkala qayb qaata qaybaha waxay nagala qayb qaataan qaybta washko kale way nagala qayb qaataan qaybta kadisiyada way nagala qayb qaataan qaybta maxaa la yiraahdaa caafimaadkana way nagala qayb qaataan GBE waliba hay'adda Save the Children aad aan ugu amaanayo mashruuca GBLG ma badashinta dawladda hoose isaga laftigiisuna dawladda hoose aad bay wada shaqeeyaan oo iskuulada waxay ka bixiyaan biyaha oo keenaan maamulayaal maxaa la yiraahdaa qolooyinka nadaafadda oo dhan oo dan hoos timaado way aad bay u caawiyaan marka dawladda hoose waa la shaqeysaa marka inoo gabagabo ku dhow barnaamijkeena waxbarashada toddobaadka ayaana maraygaasimaan waaxda daryeelka waxaan jecelahay ballan ku weydiiyo marka imka laga hadlayo xilligan la taageero xilli adduunka oo xanuunka COVID-19 wali uu sii jiro oo marba waji uu sii gudbayo oo marba waji cusub la imanaya wali waaxidnimo hawshii ma wadan hayd in ardaydii la kala fogeeyo iyo systemkii wasaaradda ay dejisay iskuuladu in ardaydu u fadhiistaan wali hawshan ku guda jirtaan hadii aan ku sheego su'aasha aad weydiisan kaaga jawaabaha waan wadnaa maadaama wali aanu siro gaadhin COVID-19 oo maalin walba wasaaraddeena caafimaadku de wacyigelin ay noo wado oo mar walba ay mobilada ku soo dhacayaan wacyigelintii oo aynu arkayno maalin walba tirada laga helo dadka laga baadho waanu wadnaa waxaanaynu ka mid noqotay iminka inaan xanuunka mar walba digtooni ugu jirno shaqadeeda dhaylaygan maalin walba qabanno inaan iskuul hebel ma la hadashay saakaanu soo kormeerno ardaydii ma wadeen marka waan wadnaa ayaan marka la xasuusto hay'adda WFP
waxaa laga yaabaa dad halkan daawani barnaamijka daawanayna jiraan talo ma digirtii waaweyneed iyo galeedii ba talo la siinay iskuulada maxay raashinka bixiya WF inta badan oo digirta bal waxaad ka warantaa ardayda cuntada la siinay nooc ay tahay sida bulshada kale caasimada ka cunaa ma dalagii dalka ka soo go'ayba raashinka WF video keentay galeediiba waa maxay cuntooyinka ama fiidika la siiyaa ardayda su'aashaadi weydiisay ahayd cuntada ma qamandigii baa la siiyaa may walaal qamandigii lama siiyo cunto nutrition oo dhameystiran baa la siiyaa cuntadaas waxay ka kooban tahay 19 item ayaa la siiyaa waxa la siiyaa maxay hay'adee hilib baa la siiyaa caanihii baa la siiyaa khudaartii baa la siiyaa bariiskii iyo baastadii marka inta aan hargeysa in ku korsano in ka fiican ayaa ubadka la siiyaa aroortii oo kale waxa la siiyaa markuu waagu bariyo waxa loo sameeyaa mushaaliduna waa digirtii iyo heedii iyo garowgii adoo la isku soo daray ayaa la siiyaa masaaco kala timir baa la siiyaa qadadii waxa la siiyaa bariis ama baasto oo hilib ku jiro maalin waxa la siiyaa kalluun maalin waxa la siiyaa digaag inta ugu badan laakiin hilibka loo sameeyaa tusaale ahaan haddii aan soo qaato hilibka wiigi waxa loo qalaa 3 neef marka laba haddii iskuulku badan yahay oo kale waxa la siiyaa 3 jeer baa loo qalaa 3 jeer waxa la kala siiyaa maalinba 3 neef baa la siiyaa 9 neef baa ugu jira toddobaadkii haddii kale iskuulku yar yahay waxay u noqonaysaa maalin walba neef baa loo qalaa 7 cisho wata ugu dambeyntii ayaan maxamed umare maxaa fursadda barnaamijka telefishinka Somaliland maxaad uga faa'iideysan lahayd hawada u marso bulshada ama bahda waxbarashada waxaan uga faa'iideysan lahaa horta waxaan bulshada uga faa'iideysan lahaa koo wadan ku soo sheego in ardayda iskuuladii la keeno waliba ardayda iskuulada miyiga jooga maanta waxa wax lagu kala yahay ee wax lagu soconaya waa aqoon qofka aan aqoon lahayn meel ma gaari karo inaan markaa waxaan leeyahay waalidka inay ardayda iskuuladii keenaan ayaan uga faa'iideysanayaa bahda waxbarashadan waxaan uga faa'iideysanayaa inaan ubadkeeni daryeelkeedu kordhino hadday noqoto waxbarashadoodii hadday caafimaadkoodiiba noqoto oo inuu idhaahna qarankana waliba miisaaniyadda hano loogu daro iskuulada fiidinka Somaliland dhameystiran la gaarsiiyo aad iyo aad buu mahadsantahay agaasimaha waaxda daryeelka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Marwaayaan Maxamed Amare waxa fiiskeeda aan ku soo boqon isla markaasina aanu kaga xogoreysanay barnaamijka waxbarashada telefishinka qaranka Somaliland qaybta quudinta ama fiidinka loo yaqaan ee la siiyo carruurta miyiga ku dhaqan iyo carruurta kale ee iyaguna danyarta ah ee magaalooyinka qaar ka mid ah jooga oo barnaamijka waxbarashada toddobaadkan aan aad ugu la fugureynay markale ayaan aad iyo aad ku mahadnaqaynaa barnaamijkana waxaan jeclahay toddobaadka daawada intaas inaan ku soo gabagabano barnaamijka lamida koorta kulmano dhamaantiin waxaan ku dhaafanaa dhinaca soo qaadis isku duubridka Marwa Salbi iyo dhamaan bahawlada kale ka qayb qaatay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.